بسم الله الرحمن الرحيم shalay oo taariikhdu ahayd 9 September 2022 abaara shantii galabnimo ayaa ciidanka dawladda ee sida gaarka u tababaran waxay howlgal ka fuliyeen deegaanka Mubarak ee gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalkaas ayaa lagu beegsaday bartilmaameed ay argagixisadu ku aruurin jirtay dhaqaalaha oo isugu yeeri jireen dadka shacabka ah halkaas oo jab xoogan ka soo gaaray argagixisada. sida ku cad war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaa lagu dilay howlgalka horjooga Carab oo ahaa horjoogihii ku-xigeenkii maleeshiyada argagixisada ee Al-Shabaab ee deegaanka Mubarak iyo Awmaye oo ahaa horjoogihii u aruurin jiray dhaqaalaha baadda ah maleeshiyada argagixisada ee Al-Shabaab kaas oo u geeriyooday dhaawac soo gaaray awgii. sidoo kale waxaa howlgalka ku dhaawacmay tobaneeye ka tirsan maleeshiyada argagixisada oo ku jiro horjoogihii ugu sareeyay ururka argagixisada ah ee Al-Shabaab ee deegaankaas Mubarak kaasoo lagu magacaabo Cusmaan Daawud. sida ku cad mar kale war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xilliga uu dhacay howlgalku waxaa goobta ku sugnaa dad shacab ahaa oo argagixisadu ay u haysteen inay baad ka qaadaan ama ay isla markaasba baad ka aruurinayeen. dadka qaar waxaa lagu guuleystay in goobta laga soo badbaadiyo walow dadka qaar ay wax ka soo gaareen howlgalkaas kuwaas oo haddaba baaristooda ay socoto. sida aad la socotaan waxaa jira howlgallo lagu baacsanayo haraadiga kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab oo ka socda dalka oo dhan gaar ahaan gobolada Galgaduud, Hiiraan, gobolada Baay iyo Bakool. sidaas la eg waxaa jira howlgal kale oo hore looga fuliyay deegaanka Basra taariikhdu markay ahayd 5tii bishii September 2022 kaas oo isna lagu bartilmaameedsaday maxkamad beenaadkii ay kooxda ku lahayd deegaankaas Basra. haddaba waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa inay dambi tahay la iskulana xisaabtamayo in loo dhaganuglaado ama lala macaamilo argagixisada ciidii lagu helana maxkamad lala tiigsan doono walow waliba ay socoto maxkamadaynta iyo gacankoynta kiisaska noocaas ah. waxaan ummadda uga digaynaa inay ka fogaadaan goobaha argagixisadu ay ku sugan tahay oo bartilmaameed ah si aysan dadka waxyeello uga soo gaarin. وما سنتين وبالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.